qof iina isla hadlin oon waqti qaadan weligaa saaxib iska jeclaata ma ka fikirta qof macnaha aad weli hore u arkin markii ugu horeysa is aragteen weli ma ka fikirta ani gabadhaas waxay ila noqotayba anoo horta mutay gabadhaha quruxda badan gabdhaha foosha mutay waxay dheeriyeen dulqaad dheeriyeen macnaha gabdhaha foosha xun wax ma sugaan moogtaadi go'aanna ma laha laakiin gabadha quruxda badan gabar waxaa waaye wax ayada u fiican way taqaan wixii xun way taqaanaa niyaha ugu dambeyn gabadhii saan u wada sheekaysananay adi muddo 5 bilood ay nagu qaadatay gabadhii niyaha ugu dambeyn waxaan sameeyey inaan ninkii ay jeclaayeen intay saaxiib ka dhigato ana jacaylkeeda koowaad nolosheeda koowaad ana iga dhigto wallaahi haddaa aragtid gabadhaas ay u qurux badan tahayna gabadhaas aad ku jecel midhahaysid laakiini raganimadeeda iyo hadalkayga iyo saan oola hadlay markii aragtay iyo macnaha waxay imalaysaa ninkaas gabadha caadi u sheekeeyaa anna gabadha nolol ahaanteeda xasuusisay tahay qaabka u taala xasuusiyey inay adduunka ayada ugu qurux badan tahay adoo aad taqaanaa nin adduunka dhigtaba ayada ka sheekaysa adiga macnaha waxaaban dhahayba adduunka waxaa jirto hal naaga jirto hashas naagna adi waaye sax ana waxaan dhahabaa nairobi aan jooga nairobi dhan waxay la taan dhahay nairobi dhan rag iyo dumarba waxay dhahay xayawaan ahaana u fiirsadaa qofta keli dadka waxaan dhahay dadkaas dhan waxay leeyihiin aan dhahay daanyeer ee xayawaan ay leeyihiin keligaa banaadinka qofta keli oo biniaadan ahaan u fiirsa waxaan dhahay adi waaye qofkaas dhahay rajeer ay gelisa guriga tagana waa sheekaysanay anata wax ku fiican mataqaanaa maanta qofkan haddaa si dhab u jeclahay ma laga yaabo inaan u dhawaado because of haddaan is dhaho ama gacan taag ama wax ku samee jacaylka ayada u qabo waa soo xasuusanaa ma fahantay bis gabadha waa sheekaysanay nin waxay dhahday anaadi horta cabaara is jecelnahay adaale mise ayadaa dhehayso anaadi waa is jecelnahay idinkooda joogtiin annagoo u wada fadhino waa is jecelnahay waa is jecelnahay niyahow jacaylka nagu dhammaadaa calaf wax la dhaha jiro nin intuuna calaf noo imaan ama isguursanaa hadda ama isguursanaa ayadaa dhehayso nin hadda ay guursaneen maxay igu shukaansataa markaasaa waxaan dhahay horta waxaa ka shakiyey guurkan degdega ah aniga haa waa shakiyey waxaan dhahay niyo gabadh waa sheekaysan jirteen gabadhan gabar mustaqbal fiican ahayde mustaqbal fiican qof fiican ahayde degdegan maxaa waaye marka ani waxaan isku dhufsaday gabadhan guurka igu dejinaysa oo dhahayso waa isguursanaynaa oo haddana qofka bilaa loo qabtaa moogtahay waqtiga aan qabsanay ayadoo la gaarinay mar walba waxay dhahay igurso beri diyaar ma tahay xitaa waxay dhahay sheekh anaa keenaa ad igurso le waaniki ridwaan ahaa mar kale iyo ridwaan isaaq podcast saa ujeediin wiilaa ila fadhiya wiilkan asaa codsaday inuu podcastiga yimaado aan ku martiqaado nasiib wanaag maanta waa isla joognaa inkastoo waqti dheer sugaysay wuxuu yidhi nolosheedaan ka sheekeen rabaa waxyaabo interesting ah waxyaabo aan jeclaan lahaa inaad dadka la wadaago ayaa igu dhaceen uu dhahay ana waxaan dhahay dhib male is okay hadday jiraan waxyaabo aniga iyo dadkayga la wadaagi kartid waan kusoo dhaweynaynaa podcastiga dadka dhan way u siman tahay qof kasta wuu imaan karaa qof kasta waa dhegaysanaynaa ka hor intaan bilaaban ridwaan isaaq podcast ama ridwaan isaaq channelka ridwaan isaaq subscribe kuu yahay hadduu kuu yahay aadaa umahadsan tahay laakiin weli hadduu kuu ahayn waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid aadaa umahadsan tahay ridwaan isaaq podcast maanta waxaa fadhiya bashka magacayga saxda waa bishaar magacayga saxda bishaar waaye okay bishaara lagu dhahdaa bashiir bishaar waaye bishaara lagu dhahdaa marka magaca bashka bishaaraa ku qurxiyaano bashka iyo bishaar ma islaha moogtahay bishaar haddii la dhaho magacaas si uu qoloocu noqonaa laakiin bashka waa normal caadi waaye oo ku qurxisaa magacaa ku qurxsadaa bashka adigu ma ka fikirtay mise qofka ku qorxi ku dhahay anaa ka fikiray bishaar yaa kuu bixiyey bishaar hooyada ay bixisa bashka anaa baxsada kee qurxoon ani hadda waxaa ila qurxoon bashka ila qurxoon okay waa gartay waa kusoo dhaweynayaa waa dhowahay ridwaano adiga asxaabtaada waa idin salaamaya marka ugu horeyso salaan ka bacdi nin waxaan rabaa inaan kula wadaago qisa ana igu dhacday okay qisaasna waa qiso jacayl okay horta intaan qisaas aanan kuu sheegin waxaan rabaa dhowr sheeko oo yar inaan ka hormariyo qisada oo berigaan soo gelayay nairobi igu dhacday qisa iska fani ahaan waaye oo ana i qabsatay waqtigaa nairobi soo gelaysaa ka sheekeen rabtaa aan ka sheekeen rabaa okay marka horta wax la qariy qurna ku jira ma fahantay ani horta nairobi waxaa soo galay 2018 2019 okay
waadna dareemi kartaa qof markuu ka imaado meel baadi ah meel magaalo la keeno waad dareemi kartaa xaalkiisa suu noqonayo marka niyahow markii ugu horreysay horta Nairobi aa soo galayay qisadii ugu horreysay igu dhacday waxay ahayd guri waxaa deganeen oo wish loo raacayo aa soo degtay aa soo degnay marka qofkii boostada istaagi lahaa muu imaan wuxuu dhahay gurigan kuu tilmaamay mooto soo qaado imow qofkii bostaajada baska baskii istaagi lahaa muuna ii istaageen marka wuxuu dhahay yaa kusoo degaysa adi ani wax kusoo degay wadaad abtiga kusoo degay adi abti zaid isku dhowna maahan laakiin abti adi koraad waa qaraabo aan nahay qofka kugu dhow kusoo degaysa asaga ahaa asagu ahaa qof kale ma aqoonin marka guriga markaa imaanay guriga liftiga loo raaca ama wish waxa u taqaanid bas anoo baagay watadii waa taqaanaa nin meel fog ka imaada ahay dadkan soo dhexgala waxaan dhahayaa lagaa dareemin caasimada joogtaa islaam isku dhex dara ma fahamte marka waxaa sameeyey wiishka lambaruu leeyahay guri walba lambarkiisaa ku qoran faloodka uu yahay guriga ma imaad horta guriga waa imaada ha guriga waa la soo hagaaya guriga macnaha ninka isoo qaaday bigbigida guriga wuu yaqaanaa guri la yaqaano waaye oo ku yaala California Mabaruga la dhahaa inaad taqaanaa filaa sax bas wiishkan soo koray waxaan isdhaanayo yaa lagaa dareemin waxaa iska dhigtaa qof marro magaalka soo gala yaan lagaa dareemin bas waxaa sameeyey liftigaan soo raacay hadda liftigana markaa soo raacid guriga lambarkiisa inaad taabataa la rabaa inuu lambar 6 falood 6 yahay ama falood 5 wuxuu yahay inaad taabato waaye guriga lift ma arkinaad lift intaa ku arkay baadiyaa ka imaadaan kula haba saaxiibkay bas marka 3 qof aa kusoo korna wiishkii labada qof ila socotay faloodkooda lambarkiisa way taabsadeen ana marka waxaan is dhahay dadkii guryaha lahaa waaye wax kale gelinayaan hataabanin ugu markay lambarihii taabteen ani lambar ma taaban yani guriga ayaga iskale macnaha waxaan wax laisla ogyahay waaye waxaan dhaha haddaa meel kale taabato amuu meel kale kula aada bahalkan maxaa u taabanaya lagu dhaaba ani waxaa iska ilaalinayay waxaa is dhahay nin reer magaala iska dhig gobol macnaha gobol maahan yaa lagaa dareemin inaa baadii ka imaata yaa lagaa dareemin oo nin magaalo joogo iska dhig duruufta muu dadka ka wada muuqataa ma fahamtay markii laftigaa soo kornay labadii qof lambaradii guriga way taabsadeen ana marka waxaa is dhahay bahalkan meel buu ku egaya meeshu ku egaya laha ku geeyo kadib guriga saa u gal waxaa u malaynayay bahalkan u socdo qof walba meeshiisa inuu istaajinayo inuu asis ogyahay waxa maadaama automatic ya moogtay waxaas dhahay meeshiisa ku geynaa marka iska suge ma iswaalinba geesaan u istaagay hadda waxaan dhahay dadkan ha isku dhex darin gees u istaag dadka oo lifti kula saara isku darin gees u istaag macnaha haddii isqondhori camal gees istaagay marka dadkii way iga wada degeen laftiganow ani ma degina waa socdaa le meesha ugu korayso u geeyey bas markaan arka meesha ugu korayso inuu geeyey albaabkan saa u istaagay waxaan arkay marka jawiga ayla khaldama inaa meeshii ani aan rabay in ahayn oo bahalka meel khaldan igeeya waa dareema ma fahante waxaan dha ku jir meesha ka imaata kugu celiyo bas waa soo raacay keligaa markan saaran lambar ma taawanin bas tartiib waxaan dha bahalka islaamad isku taawanin faraha ka qaada islaamka ka hadleen waxaan niyo nin marti hataa martinimada ku ekow bas waa soo raacay haddana hoosu i keenay marka hoos i keenay yaa waxaan dareemay in wax khaldan yihiin haddana haa waa ka soo baxay soo lama rabin baagii aan inaan la soo baxo baagii aan kasoo tegay intee kusoo tegaysaa bahalkii wiishka dhexdiisa ugu soo tegay macnaa inaan wax wato waan iloobanoo jawiga iga khaldama marka keligaa soo degay waxaa la rabay markaan soo degayay in ani baagii alaabtii aan la soo dego soo lama rabin aan kasoo tegay bas hoos aan imaaday welitano meesha u hooseyso anda garoonka u geeyey ma fahantay meeshaa imaaday markaa arkay inuu meesha i keenay oo wiishki uu xirmay yaa waxaan dareemay inaan alaabteeda kasoo tegay wiishkiin waa xiran wuu tegay wiishkii bas waxaa sameeyaa garan waayey teleefonka qaatay waa wacay waxaan dhahay abtiyow wiishkaasa soo raacay wuuna haleysan yahay ma hagaajisno markasta guriga wuu idhaafinayaa ma fahantay kaas wuxuu dhahay lambarkee taabatay
ما أنا waxaan dhahay ma taaban bahalkan soo guriga ma keenayo aniga waxaan dhahay waxaan soo bahal guriga u shaqeyso ma ahan soo guriga shaqo ma hayo dadka soo ma caawinayo marka waxaan is dhahay bahalkan soo ku wado guriga ku horgeynay wuxuu dhahay waxaas ma jiraan lambar 6 soo taabo goormaan taabanay lambar 6 oo inta taabanay marka aniga waxay lahayd wiishka hadda kor aado inuu soo laabanaynin oo meesha taagnaanayo ilaan mar uu soo laabtaa waa la raacaa waxaas nima fahansanaa anay moogtay guri waxaan ka imaaday orod lagu galo hataa jaranjar ma jirin haddii lagu tugooda ku bursanayo guriga orada ku gelaya dhulku aaba hataa meel yaro ku celin malan dhulka waa meel ku celin hataa malan orada ku gelaya banooni la maartay gool ma jirto goosha bir ma celiso soo ma furno dalqa la dhihi jira sax haddii dhul gaala imaaday moogtahay mana fahansane sax marka wuxuu dhahay anaa soo raac waan ku imaanay waxaan dhahay alaabtii baa iga saaranay alaabtii iga soo deji wax walba liga dareeyahay alaabtii baa iga saaranay abtii bal alaabtii iga soo deji alaabtii maxaa waa boorsadeedii ugu soo ilowda ha wuxuu dhahay qaadanaa boorsada oo meeshii kugu jiray waxaan dhahay boorso isla imaada hoos ugu imaada intee joogtaa intee sheegahay meeshii gaariyaashan joogaan dhahay meeshii gaariyaashan intee waa meeshii ugu hooseysan joogaa waa dareema marka meeshii ugu hoosey inaan joogo hay wuxuu dhahay anaa ku imaanay diyaar waa bas sidii uu abtiga ugu imaaday asagii borsi socdaan soo korodhaa marka sax wuxuu dhahay horta uu ii faadiyey khayr Allah siiyo wuxuu dhahay lacala haddii bahalkan aad soo raacaysid guriga lambar meesha u socotid inuu faloodka saddexaad ka labaad ka afraad ka shanaad inuu yahay dadka weydii xashoonan marka aniga waxay ugu jirtay maadaama waxaas dhahay yaan lagaa dareeminayo waa fahmi kartaa moogtahay dad waxaa jiraan haddii aa u dan sheegato way ku raaxaysanaan balaa iska ka dhigaan ma fahantay marka aniga waxaas dhahay islaamka ilaa isku dar yaan lagaa dareeminba sax bas waan soo galnay meeshii waan kornay lambarka 6aan galnay waa tagnay xaafadda bas guriga waa la yaabnay oo fadhigii waxa gurigan fiiriyay jawi kala gala bas wuxuu dhahay alaabtan dhigo dharkan iska siib hadda safarku u imaatay dhar kala xiro macmuustan iyo fanaanada xiro musqusha wataas soo qabayso ayga shalnay lagu qabaysan awaan dhahay shalay biyaa ku qabaysan lahaa isaabunti awa soo fiir wuxuu dhaabtay shan ma ka wada hada waxaan dhaabtay oo ani soo qabay Soomaa dheen 5 litre waxaan dhahay shan 5 litre aw biyaha lagu shubanayo lagu qabaysanayo kaas wuxuu dhahay waxas ma jiraan meel magaala imaatay tartiib musqusha wataas gal falaasha jiro falaashka daaro hadaa biyo kul rabtana badhanka baalka daardamiyaha guduudka weynka dhagsi hadduu iftiimo ku qabayso batiga waxa la daardamiya macnaha sokodkaas taawo dhagsiiso ana daardamiya u naqaanaadee bas asaas miyaa diyaar waa marka waxaa jirto dhalinyar qof moogta qof wuxuu rabaa biyo iska normal oo zaid u kulleen qofna wuxuu rabaa biyo kulul marka aan nasiib xumadeedii waxay ugu soo biyo zaid u kululaa oo hoodka ahaa bas badhankaan dhagsigii musqushaan galay haddii horta waa kas musqusha markaas u galay waan soo laabtay waxaan dhahay musqushiin gud mala maxaa waa gud mala maxaa kada macnaha intee ku xaj gudatiin adi waxa sugaysaa musqushii meesha ka timid godkii caadi loo fariisana sugaani oo saas loo fariisanay la kadaloobsanay sugaa mogtaadii oo nafsiska dareemaysay oo fiiri dacalka kor ilaa hoos waa soconaya bas afta waxaan dhahay tii musqusha caadi tan tii qabayska waa tii caadi gee tii godka la gee asoo u imaado wuxuu dhaftay oo reebada iska dhigina wuxuu dhahay fadhigaas muu jeedaa ku fariiso hay fadhigan ku fariista ay fadhigii aniga musqusha wax usoo galay moogtahay saxara aan soo galay inaa ku qabaysta moogtahay fadhiga miska fariista nafsan dareemano ani meeshaan ku qabsadaba saa iska mana xaajo gudin waa iska fadhiyey biyihii meesha biyaha ku jiraan moogtahay musqusha biyaha lagu falaasho soo meesha kuma jiraan marka aniga waxaas dhahay biyaha wasaqaynan waxaas dhahay biyahaas biyo nadiifaay wax baan dhici karee biyahan in lagu xaajo guto looguma talagelin ana hogan ogaa moogtahay waa kusii dayn labis haddii god dheer ahaan lehed caadi hadduuna godka biyaha ka buuxaan laakiin meesha hadday meel u eg tahay lagu xaajo guto adi moogtahay xaajada waa gudan kartaa sax laakiin meel aan lagu talagelin in lagu xaajo guto markaasna ay kugu cusub tahay oo dadka reer magaalka bis ay yaqaanaan sax
waa la dhaqmi kartaa moogtahay bas ani dadka biyihii nadiifteed oo u soo tegay ma ka hadlaynan waxaan dhahay biyahaas waa la isticmaal rabaa weel meesha qaboojiye waaye ama waxaan dhahay moogtahay hadda qaxootiga oo kaleeto mis baadiyaha markii biyo qow u baahan tahay horta waxaa la isticmaala qaboojiye baa la dhahayo hadda shanlo oo kaleeto ama 10 mataqaana 10 liter oo kaleeto waxaa la sameynaa waxaa maraa lagu xiraa waa la shaqlaa mataqaanaa waa qurxis ma ahaan laakiin bustaa lagu dhejinaa bustaa moogta haddii la qoqooyo jirkaanka ku qaboojinaya ma fahante marka haddii waxaasna aad haysanin baadiye fog aad joogtid waxaa sameynaya baaquli weyn oo kaleeto aa soo qaadanaya biyaha ku shubanaya afkaa ku furaya baaquli afku ku furaya moogta biyaha ku shubanaya geedaa hoos dhiganaya si fiican biyahaasna wax ka macaan ma arkaysid marka aan waxaas biyihii waaye qofaa qaboojistee biyaha uga xaaran bas waa fariistay saxadeed waxay waan iska cishtay waxaan dhahay waxaaga maalka ilaahay ku saalo oo tan dhaanto meelaas la aad qabayska imaada marka shaawarka in la daaro soo lama rabo ana marka waxay leeyahayd waa la hoos istaagaa le bahalkan waa hoos istaagi asagaa socone maadaama meesha meel caalami ay tahay oo gurigii la rabay inay jaranjaro loo koro ama gurigii la rabay loo rafaado adoo taagan guriga lagu geenayo albaabku kaas gal lagu dhahayo wixii markaan arkay yaa maxaas dhahay kana waa sidii hataabanan meel khaldan hataabanan dhahay aan intaas waxay ga tahay mataqaanaa intaas waxay ga tahay faraka ceerka joojiye oo macnaha qof guriga waxbaa ka hadlaynin maadaama marti aad tahay martinimada bis ku ekow hadda martinimada ila sii fogaatay iyo meeshaa ka imaada markaan isku fiiriyey yaa waxay ila noqotay inaan aad u fogaaday meel fog a ka imaada ma soo qabaysanin macamuustiaan soo xirtay fanaanadii waa soo baxay biyi ma soo daadinayaan laakiin biyi ma soo daadanayaan abtigaa un tegay abtigaa kharalaha si fiican magaalka ifahansiiyey bas marka wuxuu markaa u imaada ma soo qabaysan ma soo qabaysan biyi ma socdaan waxaan dhahay adiga waxaa igeysan dhahay meel intii lagu fariisto telefoon lagu isticmaalo oo babji lagu ciyaaro ama game lagu dheelo aa ifriisaan dhahay fadhi qurxan aa ifriisa abti waxaan islaagman biyaha uga ciyaaraa meesha biyaha ku jiraane intuu gacanta soo qabto wuxuu dhahay meeshas ma ujeedaa meeshas ku fariiso ku xaajugudo kadib bahalka meesha fadhiga korkiisa bahal waxaa jirta la taabanayo oo flash biyaha ay flash mayaan ama hadda saxarada ama kaada ay flash maya wuxuu dhahay kadib markaad xaajo gudtid abti meeshas taabo flash haye diyaar waa taas waan fahanay waxaan dhahay qabayskiina qabayska wuxuu dhahay waa kanaa shaawarka wuxuu leeyahay marka bahal la furaayo oo biyaha soo daadanayaan hadhowtana waa xiranaya aniga dee wixii ma fiirin moogtahay wixii waxaan si malaynayo qurux meesha in lagu dhejiyey wax derbi kasoo taagan oo meesha waxaas dhaha haddaad taabtid ama meeshan si u noqotaa ama ay kula dhacdaa ma fahantaa marka abtiga shaawarka wuxuu dhahay fiiri waa kaala ima u dhahay qof marku wax kuu sheegay marku wax lagu tusaay moogta way kala tahay niyo abtiga dadka qumanaa hore waaye wuxuu dhahay abti wuxuu dhahay saan samee haddaa rabtid inaad furtid dhanka bidixda usoo furo dhahay haddaa rabtid inaad xirtid dhanka midigta u xir abti saas miya haddaan furo biyaha soo daadanayaan haddaa xirno biyaha saas dhamaan abti waxaan khayr alla ku siiyo waa maasantaha waa fahmay bas hay iska baxan hadda waa fasaxan tahay aniga xaajadii noo daa bas waa fariistay wax si fiican u xaajugtay falaashkii inkaan qabiyo niidiidu ka baxa falaashkii in la falaash baasha niidiida ka baxda taabanaye niidiida ka baxda ila ani waxaa moogtahay saddexlaaga ama shanlaaga iska qaadanay biyaha ku shubanay waa geli gacantaada isticmaalay falaash ma u baahnaba meesha ilaan god weyn oo wax ku dhex riday oo dhagax saaran yahay falaash ma kaaga baahan yahay ma kaaga baahan ma fahamtid bas waa xaajo kutay waxaan samayn karaan sameeyey intaana kicin ka hor waxaan raadiyay waxaan saxarada iskaga dhaqo ilaan gacanta meeshan ay surantaaba bahal tuubaa meesha suran oo saxarada iskaga dhaqo moogtahay anaa dee moogta waxaa la tushay falaashkaas iyo sidii xaajada loo guto ma fahante wixii la iskaga dhaqi lahaa awe anoo saxarada qaba musu istaagi kari moogtahay meelahan fifiir waxaan dhahay niyo 2 mar wax lagu sheegay nin weyna tahay isku xisho bal indhaha wax la sameeyaan dhaadi wax la sameey bas ilaa amagti dhinacyahan fiiri bahashan waxaan ark gadaashay taalo marka bahasha saan u taabtay beri ahayd waxaan dhahay tan naf ma lahay waxba kuma jiraane meesha saa saarnaata dhaf tun naf lama ahan oo wax kuu qabanaysa iska daan dhahay bas ilaa amarkiis anoo fiirinayo yaa marka waxa ii sawirmatay niyo moogtahay markii kastoo maskax aa leedahay waxba ku furi moogtahay bahasha afkeedii saan usoo aadanaa oo saxara loo isticmaala iskaga dhaqaaya marka waxaan dhahay iyo waxaan arkay dheg dheer oo saan usoo taagan iyo afkii oo saan arkay marka waxaan dhahay bal iska fiiri
soo bixiska marka waxaan rabay inaan soo jiido baasha marka koraa loo bixiyaa ana marka waan soo jiido ay soo bixi weysay waa fikiray saanaan dhahay koraan u jiido way soo baxda bas anoo iska taabanaya marka markaan saa u fiiriyey yaa waxaan arkay dulal yariis ah shaawarkan waan fiiriyey meesha biyaa kasoo daana meesha camal soo ma ahan waxaa samaysaa meel lay ka taabo baasha waa jiido way shumaysay ilaahay amarkiis wax aan macnaha ani qasad ani aan lahayn ma aha gacanta iga dhacday gacanta marka qaar jirkaa kula shaqeyna moogtaadi so gacantaasaa ku dhahayay gacan xooganaan ku qabtay biyihii soo dhaheen hadda meel alla ku taabatay iyo meel si qasad u taabatay mas leedahay ku celi waadana ku celi baash saan dhiile saanle baash waa la rafaaday ma ka imaanayaan markada waxaan dhahay baashin yarta istaagan bal hoos u riix ama kor u jiid fiiri koraa u jiiday oo ii shurmaysay hoosaan ku baraaweeyey oo ii shurmata bas tiyaan qabsaday saxaraa iska dhaqay tartiib waa ka soo kacay qabeysaan ku galanoo ninka xaaji gutamaba ihiba meeshaan waa buuxdaa ilaan waxaa ilowday falaashkaa ilooba inaan falaasho oo markaan ka kaco inaan falaasho oo meesha aan nadiifiyaan ilooba batuunkii dhammaan xasuusnidba kasna ma iga ahaan laakiin waxay iga haysa aqoon la-aan ani u qabo bas waaye ee ani xaasidimi iyo waxaas ma ahaan ma fahantay hadda waad dareemi kartaa neef xoolo oo beer lagu sii daayay waad dareemi kartaa waxaan dhaniyahow nin aan waxba halaynin waxba ma barto bal maanta meeshan inaan wax ka halaysa isku day hadhowt waa la hagaajini saan maaha meeshaas taaban waa lagu dhihi laakiin hadda sida qof indhala iska soo geshid adoona meeshaas waxba ka fahmin aa kasoo laabatid macquul maaha moogtahay marka waxaa sameeyey horta shaawarka waa la ibara moogtahay taas waa fahansanaya ma la igaadi kara mar dambe tartiib dharkii meel aan saartaa garan waaya haddana dharkii waxaan dhahay niyo meeshan saxara waa ku xaaji gooto ma saaran dharka xagee saarataa marka waxaan sameeyey albaabka intaan furtay albaabka musqusha yaan banaan kusoo tuuro dharkii so marka banaanka maan kusoo tuuro dharkii albaabka meeshaan kasoo gelaa musqusha iyo wada yara jirta moogtahay oo loo soo raaca musqusha tiyaan dhiga marka naagta so ani ma fahansanin meesha naag shaqaala joogto dharkay dhaqdaa dharka wasaqdaa meel baa loo dhigaa hadday dhar meelaya aragto macnaha waxay fahmaya in dharkan wasaq meesha loo dhigay oo dhaqabtaan u baahan yahay sax abuhel waxaas makuu fahansanay dharkii waa dhar nadiif hadda liisoo bixiyey wasaqna iska dhaafi xitaa weli maba la xiranaba ana marka waxay ka tahay dharkaaga nijaasad ka ilaasho oo meel fiican dhigo ilaa moogta anaga musqulaha anaga qumanaa jiingada iska saaran dharka meela saartuu leeya moogta alwaaxa waxaa jiro koray ka furudda moogtahay meesha hataa saaran kartaa marka aniga waxaa sameeyey waxaan dharka meesha keliya dharka ay kugu badbaadayaan waxaa waan dhahay nadiifta waa meeshaas alla ilaahay hadda meel fiican dharka dhigata aan kuu qabaysto horta kow markaan sa u daara biyihii falaashkii aaw biyihii waxay noqdeen dab iyo nar meesha ugu ilaan waa moogtahay waa normal iyo caadi cool iyo waxaa waaye zaa'id waaye bas qabow meesha waa qabow iyo waam iyo kuleel zaa'id ah hot waaye ani waxaas maku kala aqaanay hodaa ka dhigtay hootu ahaaba ay taabto waan garan waaye qofaa wuxuu sameeyey uu ku qabaystay hali u dambeysay uu iska raaciyey uu ka tegay asana mau dhihin qofaan waxba aqoon ma socday bal iska bedelle dad waxaa jira moogta inay xaasidin ah ya dadka moogta dad waxaa jira wanaagsan oo iimaan la dad waxaa jira xaasidin oo dadka inay dhammaan bas ugu talagaleen markaas waxaan u malaynaa ninkaas dhibitaan kama ahayn laakiin wuu iloobay bini aadam moogta wuu iloobi karaa wuu iska iloobay anoo meesha shaabarka hoostaagan aan shaawarka daarta dhibicda ugu horeysay dhawarka iga dhacda markaasaa waxaan dhahay aftiga waxaan dhahay cadow waay asoo waxaan dhahay adoo heli karta inaa biyo caada ku qabaysta qaadar qawuha aadaana aftiga wuxuu naartan ku hoos istaajiyey waa un dhawa albaabka moogta albaabka waxaan dhahay fur macmuus xiro u tag albaabkaasa u fura dharkii meesha ma yaalaan markaa ka dhamaato dharki maya anuuna qabaysan marka waxaan inaan dhaho biyaha kuleel inaan u sheegaan dhaabto biyaha kuleel zaa'id waaye kaal iga bedel sax bas albaabkan furay marka albaabkaas u furay yaa waxaan arkay dharkii oo meesha oolin waxaan dhaniyo ama riyoonaysaa dib aan iskugu laabtay musqushii wixii aan fifiiriyey waxaan dhahay haddaad suma xaaji gudin musqusha oo fiiri xaajada way taallaa marka waxbaan isku dhuf anin dhan waxaan isku malayniyo inaa aan maqanahay qof maqan aan ahay waxaan maqan moogta magaalo waa lagu wareeraa marka waxaas dhahay waa wareerta maanta maanta waa wareersan tahay bas waa fikiray meeshaan ku dhex fikiray waan istaaga saan u qabsaday marka waa iska fikiray fadhigii aan kasoo kacay oo lagu xaj gudanay yaan iskaga laabtay barta wax ku dhamana waxaan dhahay fariiso u fikir si fiican u fikir bas marka waxaa ugu soo dhacday albaabka intaan furo luqunta aan ka dhiibto aan abti kale bas abti waan u dhawaaqay waxaan abti oo biyaha
wuxuu dhahay dhar xiro dharka waxaan dhahay isoo wax geelane xagga yeelan dharka awo waxaan dhahay albaabkan kasoo gela musqusha aan dhigta meelaha saartaa garan waaya xaggaan dhigta najeesaan kala cabsanaya dharka wuxuu dhahay baashan albaabkan u jeedi miyaa baalahan kasoo taagan maa saaritid baalahan sas loo saartahay waxaan albaabka gudiyan baalaan oo gudiyine maba sii fiirin ma kusii mashquulan bas adi wax kastoo aragtib sharxa le umalaysaa haa wax kasta moogtahay quruxda markaa fiiri markaa guri soo geshid guriga hadduu sharxan yahay wax walba moogtahay waxay kula noqonaya sharaxay kula noqonaya wuu imaaday wuxuu dhahay dharkaa abta waxaan dhar mahaystay waxaan dhahay bahalkan kuleel waaye bas macmuus kale haddana uu iisoo bixiyey wuxuu dhahay macmuustan xiro xamar banaanka soo istaag anaa ku hagaajine marka abtigay ilaahay amarkiis marka xaaji ku ilaa moogtahay falaashka wuu ii sheegay wuxuu is dhahayay ruuxan ruuxooda wax mar loo sheego wuu qabanaya falaashka niyadda maanaa raaciyo ma falaashin ilaahay amarkiisana falaashka inay musqusha falaash u baahan tahay muuna arkin bas wuxuu sameeyey macmuus iisoo qabtay wuxuu dhaabtay halka kor ma u jeedaa shaawarka badhan waxaa jiro oo aad riixaysid haddaa kuleel zaa'id aad rabtid haddaa kuwa qandac rabtid haddaa qabow rabtid marka wuxuu dhahay waxaas lacal haddaa soo geshid musqusha iska fiiruu dhahay dad waxaa jira kuleel rabo iyo dad aan rabin marka wuxuu dhahay waxaa samaysaa badhankaas iska riix dhankan uu riixmaa dhankan uu riixmaa qoraalkan ana moogtahay wuxuu dhahay fiiri inay hood ku qoran tahay waxaas waan kala aqaanaa ilaa waxaana bareefa soo dhigto laguma khasaarin moogtahay way yar bilaaban tahay laakiin magaalada igu cusub sax oo de waxaan la yaabana shaawarkan ani aan la yaabana moogtahay sax bas wuxuu dhahay wuu ii geeyey wuxuu dhahay kuleel zaa'id maa rabtaa mise wuxuu dhahay waxaa rabtaa qandac mise qawi baa rabtaa waxaan dhahay qawi ma rabi waxaan rabaa kuleel zaa'idna ma rabi laakiin kuleel dhexaadaan rabaa saas miyaa hay diyaar aan ku geynay bas wuu ii geeyey aan qabaystay si jawi degan wasaqdii aan iska dhaqay waa soo nadiifiyey macmuusta soo xirta waan soo baxay ilaa musqusha moogtahay waa musqul waxaa waaye publiga la isticmaalo guriga laba musqul qabaa mid waa mid oo familiga isticmaalan oo duqa iyo xaaskiisa gudaha ugu taalo midna dadka qaraabada macnaha adi martida aa galaan waa la isticmaalo waa la sheergareeyaa ilaan qofaaba isu waayo inuu xoro musqusha galo waa la hortaagan yahay fadhigaa la ii fadhiyaa aba hadda nin reer magaal mihii aan musqusha waan iskaga soo kacay sideeda aan ugu soo tegay sideeda aan ugu soo tegay marka wiilka meesha hadda isugaya musqusha fadhiyo intaa ka salaamaya mu ifahansaneen haddii wuxuu isdhahay ninkan maadaama nin Nairobi joogo uu yahay horuu musqula usoo arkay dar ilaah iga tahay daacada iga tahay waa uga soo kacay laakiin waxaa ugu daalay shaawarkii usoo damiyey nalkiina waa u damiyey maxaa kaloo liga rabay intaas hal bisa iga maqneed inaan flash bis le flashkaasna waa caadi gacanta iga dhacday aan soo iloobe bas markaas usoo baxay waxaa dhahaa ma soo dhamaysta saadu lagu soo dhiibtay hadii waa dareemi kartaa meel wax quran yeelaan qiiqaa soo galan oo ninkan kii ka dambeeyey marka nin reer magaal asan reer magaal ma ahayn macnaha reer magaal uu ahaa laakiin wax garad ma ahayn maadaama de nin cusub aan ahay way ogay inaan guriga maanta caawa aan ku cusba aan joogo muunay dhihiniyaho saasaa wax loo sameeyaa marka wuxuu reer magaalnimadiisa asila bis isku anfaco qofka wax ma gaarsiiyo qof waxa fahmad wax in laga faa'iido waxa la iska faa'iido moogta qofku inuu lacag ku siimaan laakiin qof maanta wax ku sheego oo ku dhaniyo waxaas waa khaldan waxaas waa saxsan yahay saas samee wax la garto waay qofkaas qof wanaagsan waay laakiin qof asaga la bis rabo le inuu heer isgaarsiiyo mise asile balaa noqdo qof fiican maaha sax bas marka soo galo inta isoo fiiri kula wara kalaadi anda maxaa jiro wuxuu dhahay saamax ka wada saan dhamoogta mana inkiri kari moogta markaa soo baxa way arkay haddii laakiin ani uu meesha igu arkay anoo soo maraayo waa ku inkiri lahaa ani mayaan ilaa aniga iska dhig hawshaada wado mana bas gacantii soo qabtay lijana wuxuu dhahay see wax jiraan aan dhahay brada see maxaa ka wadaa wuxuu dhahay horta inta maa degan tahay waxaan dhahay inta ani weydiin ka hor aad inta maa degan tahay soo dhahay adaa la rabo inaan ku weydiiyo guriga soo abtigaa degan haa marka abtigay waa iskaabulo waaye ma fahantay hal qol uu degan yahay oo laakiin laba qof wada seexan karaan laakiin iskaabul ahaan uu degan yahay xaaskiisana xaas ma lahan iskaabul waa iskaabul aan ku dhahay xaas intuu ka imanaa mar waxa laga yaabaa in ay maqan tahay oo kale bas uu imaa qolyaasha kalena waa odayaasha kale macnaha guriga waxaa waaye family waa 4 qol 2 qol iyo fadhi waxaa degan ninka iyo 2 cunug dhalay iyo islaantiisa qol kaleetana iskaabul degan qolkan iskaabul degan 2 qol fadhi soo 4 qol fadhi waaye guriga hal qol waa ninka iyo xaaskiisa qol kalena ilmaha waaye yarkana yar waxa waaye yarka guriga iska leh ee qaraabo yihiin
okay so abtiga iskaabuladu kamid yahay abtiga iskaabulu kamid yahay ninka guriga leh ma aha ha asaga marti ahba okay ma fahantay yani asaa wax kareysta asaga wax kareysta oo bas yarkan gurigu macnaha nala degan yahay asana anaga sidaan amal waa okay so inta baad degantaa ku dhahay haynta ma degantu dhahay marka ani waxaan dhahay inuu isdaji laga yaabo in ninka guriga lahaa yahay aan dhahay baxrays gelin meesha meel aabbaha hooyada ku leeyahay maahane waxaan dhahay cagta hoosteeda ka soco say diyaar waan dhahay bas wuxuu dhahay waxaan dhahay niyow haa niyow anu waxaan intaan deganay maanta waa cusub aan dhahay niyow ninkaasaa ka imaaday meel waxaan sheegtay weliga aan arkin gaaris la dhahayo waxaan dhahay niyow reer gaaris ah adaa arkin gaaris ma arkin macnaha safar ahaan kusoo maray laakiin weliga gaaris ma arkin okay gaaris horta haddii maanta nin gaaris ka imaada ahaan lahaa gaaris waa macnaha waa magaalo waxaa waay dee meeshaan ka imaaday zaaid uga fog waaye nairobi oo kale ahayn laakiin waa magaalo yar horumarsan ma fahamtay oo dad waxaa joogaan dee waayo arag ah anina nin baadii tos loo keena ahay sax bas meeshaan sheegtay marka okay waxaan dhahay gaaris maa ka imaatay mise beenaa sheegaysaa waxaan dhahay gaaris ka imaaday bas wuxuu dhaha buuladee waxaan dhahay gaarisaan ku dhahay buulo maxaa kartaa muhiimad waxaan dhahay su-aal ay weydiisay waxay dhahday intee ka imaatay mogta ninka su-aal weydiiy wuxuu intee ka imaatay anina waa u jawaabo ma iswaal waxaan dhahay gaarisa ka imaada mogtaadi gaaris maa ka imaatay haa hay wuxuu dhahay buulada ka imaatay waxaan dhahay buulo ma ka imaan anin gaarisa ka imaada hadda mogtahay waxay ugu jirto weli is adkeynta ay ugu jirto niya reer magaal iska dhig waxaa la mogtahay meel walba say tahay aloola yaalaa say kasi yihiin aloola dhaqmaa laakiin haddii ka hor ka cagjidid oo dhaqanka la imaatid ma soconayso wax lagaa soo reey waayo markaan waxaas dhahay dadkan wax ka faa'iid ani wax weliga ma faa'iidayo eberna iska dhigin dadkan ana wax ka faa'iidaas dhahay anaa waxa ugu jirta inaan wax faa'iidaan rabaanay ha dhowto macnaha say aan igu dhacday qof kale inuu ku dhacday ma rabin oo aan garanayo oo weligiisna magaalaan arkin bas yarka waxaa samaysaa u dhahay niyahow bahal badow baa tahay oo xoole ah waxaan walaal maxay ku caynaya war badow baa tahay niyahow badow maxay yartaa maxaa meesha noo buuxisa u tagta markaas waxaan dhahay meesha maxaa jiro aksa u qorasa waxaan arkay inaan dhex taaganahay inaan dhex taagana is arkay ma fahanta mana dhihi karo waa liiga horreeyey dadkan dad magaalo fahansan waa qof kasta usoo kacaba kicitaan intuuna kicin muksa u kaco falaashu gacanta kusii hayaa ilaan waxaa waaye la bartay sharci waaba ruul meesha u yaallaba musqusha adoona falaashin talaaba ma qaadi kartid because of hadhow because of hadhow sababtaas loo sameynaya ma aha dee ruul adag meesha yaalla maa laakiin waxaa fiican hadda oo kaleeto markaa magaalo aa fahansan tahay ani haddaan magaalo soo arki lahaa musqushaas ayadu sama ugu stegi lahayn dadkaas waa ka falaashi lahaa adi gurigaa fahamtay gurigaan fahmay macaamilkaa fahamtay waan fahmay kadib banaanka u baxday hadde banaanka qof markuu gaariyo badan iyo wax arka wala yaaba moogtahay meeshaan ka imaadana saacaddiiba hal gaariyaa ka hor imaanaya halka gaari intuu soo maraayo magaalada aadi timaha soo jaran waa soo qabaysan waa soo laabanay gurigaa ku soo laabanay gaari kale ma soo maraayo macnaha ka waqti le waa wiishkii waan fahansana moogtahay midaan fahmi waayo laakiin mid baa haddana iga hoos baxday aniga waxaa aaminsanaa bis lambarka 6 inuu anaga noo go-an yahay ama hoos aad ama kor aad laakiin lambarka 6 ina anaga leenaha ogaaba marba waxay qabatay ma calaamadaysaa macnaha lambarka soo idinka dhumay calaamadaysa camal ma fahamtay bis lambar 6 aan ku taabtano lambar 6 aan taaganahay baaska ma dhaqaaqayo ilaahay amarkiis waxaan ku faktay wax ilaahay ugu badbaadiyey cunug yar oo ayaga loo soo diray aa soo galay markaasuu wuxuu taabtay jiyo taabtay anina lambar 6 ay tahay mogtahay adii 6 markii la soo fulay in taabtay ma ogtahay mis kor iyo hoosba waxaan dhaaba kor iyo hoosba 6 idinka iska leh deyrtada 6 taabtay 6 ka socda camal haa lib ay qad 6 ahay maqli jirto cida filada inta lambar 6 anaga waay يعني adeegsi camal waa waxa luuqad isku fahmaysa adii liftiga lixa u socdaa lixa ka socdaa lixle hadhow moota lambar haddaa taabatid hadda markaa wiish soo kortid meel u socdaa garanays lambarkaa taaban moota wax kuu mashquula malahan laakiin meel aad taabtadaa garanayn ka waran marka ani waxaa ogaa lambarka 6 in anaga leenahay oo anaga noo godan yahay no abtigii lambar 6 bas inay leeyihiin wax kale ay leheen maba fahansanaba inay lambar 6daas markii kor loo socdo bas ay tahay ma fahante lambar 6 aan ku riixay waa taagan tahay cunugaa soo galay meel ay ku qoranta jiyo taabta marka
waxaa maagay inaan intaan haddana taabto aan tirtiro waxaan isdhaa moogtay markaa wax taabatid waxaa jira wax tirmaa camal haddaa taabto haddana inuu meesha uu ka babaayo bas tartiib cunug yarkaan saa isha u fiiri waxaan rabay marka inaan hadda lambar 6 aan taabto si u tirmato ma u tirmayso baashan lambar 6 la taagan tahay bas markii dambe jiyo noo taabto cunugii waan soo deganay hoos aymaana cunugaas oo fiiri waxaan dhahay ilaaha ku barakeeyo niyadda ugu duceeyey asana moogta wax ii faa'iideeyey moogta qof wax ku faa'iiday hadduu weyn yahay hadduu yar yahay muhiimadda waxaa in waxaas lagu faa'iiday inaa qaatid uu faa'iiday inaa qaatid moogta cunugaas abaal oo hay asana maadaama inii markii la soo degaayo lambarkaas la taabto moogta ga in laga wado hoos ne waxaa la moogta gaalka dil gartiisana sii marka ani ilaa hadda waxay tahay ani faa'iidaysi leh faa'iidaa ku jiraaba qof walba waxbaan ka faa'iiday bas waan soo dega xagee loo dhaqaaqa okay marka Nairobi imaaday gurigii horta sheekooyinkaas waxaa kaa qabsadeen horta guriga haa waa fahmay markii dambe magaalka si guud ahaan marka shaqo ma u imaaday si u gashay hadda magaalka horta Radwaan oo magaalada horta marka aan imaanayay horta nin go'aan lahaa oo go'aan ku imaaday inaan shaqaystaa magaalada u imaado magaalada miskiin maan moogtahay ana haddaan rabo inaan magaalada baashaal u imaado hooyadii kama mustaqil hooyadaan la joogi lahaa hooyada agtaan iska baashaal lahaa ma fahantay marka ana waxaan ku fiican horta nin baluud lama ahayn sax magaalada qof hadduu baluud leeyahay wax uma ka khaldamaa sax ani horta wax baluud dhaho ma lahayn magaalada waa qiimeeyey waa fahmay asxaabaan la saaxiibay laba wiil waxaan la saaxiibay laakiin way adii balwaday lahaayeen waan la saaxiibay labada wiil marka qof aa saaxiibo noqotiin saa oo go'da adag tahay moogtahay marka waxaan sameeyey wiilashaas kor inaan saaxiib ka ahaano aa wada socon maanta waxaa la dhahay saaxiibkaadu tuug yahay adina tuugaataa sax ma fahantay maanta waxaa la dhahay qofkan intaada fiirin ka hor saaxiibkiisaa la fiiriyaa sax maanta ani haddii intaan la fiirin ka hor adaa lagu fiirinaya sax adi haddaa nin wanaagsan tahay oo aad wacnaha wax kale ku mashquulin dantaada aawatid aan nin wanaagsanaa ilaah wadaar ma ahaado cabti weyn ahaado laakiin adiga waxaa tahay nin wanaagsan aan la ima fiirin adaa lagu fiirinay saaxiibkiisaa la fiiriyaa qofka niyahow ani hadda waxaan ku fiicnaa hooyadii lama joogin hooyadii moogtahay way qiimeyn lahayd asxaabtii fiirin lahayd ayadana waxay ugu taqaanay asxaab banoon bis naga dhexayso wax kale maana samayn jirin banoontaa waqti ku dhumi jirna sax abtigaa maalin dambe arkay anigoo albaabka la taagan wiilashu arkay geesu ila bax mu ila hadlin markuu wiishka agistaaga uu ii wacay wuxuu dhahay bishaar kaale waa u imaada waxaan dhahay abtee wuxuu dhahay wiilashaas mistaqaaneen haan waa isnaqaanaa saaxiibaan nahay saaxiib maatiin haa abtee wuxuu dhahay adi wax balud maa leedahay abti maa kaa khaldan waxaan abti adi balud ma leedahay xasuud ani ma hay weydiinay adaa ku weydiiyey su-aasheeda iga jawaab macnaha su-aasheeda lama haddana su-aal jawaab iga dhigaya waxaan abtee waxaan horta ani balud xaaraam igta balud ma lihi si kale ahaa dhalinyaro aan iska hada lakin waxaan balud ma lihi waa ka dhintaa balud sax wuxuu dhahay raggaas rag balud la waayo abtiyo bini aadamaa tahay wax walbaa dhici karo iska ilaale haddaa iska ilaale wuxuu dhahay banaanka mar abtaan rag waan isfahanay rag waxaa rag saaxiib baan nahay baladu ayaga u taalaa meelay ku cunaan ma tigaan dhaanay ayagoo cunaana ma ag istaagay hadday baladu waxaa jirta moogtahay wax mar walba lama isticmaalo meel waxaa jirta khaas oo loola tago ma fahantay meeshan meel magaalo waaye maanta haddii qof balad uu meesha la istaago Soomaaliya waa la yaabay waxaa la iska ilaalinaa wala dhuumanaa maanta waqtigan bini'aadamka hadda jiraan ilaahay moogta ma ka xishoodaan bini'aadam ka xishoodaan ma fahantay dadka ka cabsadaan cabsi ilaahay ma jirto bas ilaa amarkiis wiilashii anigu waxaa sameeyey maadaama dee nin dee magaalada bas iga maqanta laakiin wax fahmi karaa ahay waxaan dhahay niyo maadaama magaalada ku cusub tahay intii khalad ugu fahmi lahaa dadka nin wanaagsan wanaaggaa iska wado bas ama reebaadinin waxa iga dhimaya waxba igama dhimayso laakiin hadda maanta nin xun aan noqdo waa la farfiiqaa haddii lagu farfiiqana ma fiicno in lagu farfiiqo markii hore reebaadinimada wax umaleynaysa ceeb laakiin hadda waxaa ogaatay may reebaadinimo aan ceeb ma umaleynayo markii hore ku dhahay ana markii hore ma ho haa waxaad dhahay reebaadnimada qarso macnaha qalbiga reebaadii ka ohow laakiin wejiga kore qaab ahaan islaamka ilaahay si u labisan u labiso sax ama hadda maanta haddaan labisto oo suuti xirto Ridwaano ama ilaha ninkaas reebaadii waaye socodka ma lagu saari karaa laakiin haddaan buud qaato ka horan ama koordaa qaato weli waxaa la dhahaa weli waa soocaysaa haa niyow dhaliirta mana u sheegay ma dhihin niyo asxaabeedii akal harna ma dhihin waxaasna waa khalad ma fahantay qof haddaa saaxiibtiin ama ha xumaad ama fiicnaado markuu aa waqti isku heshiin waqti qaata mar kaletana kala danaysta marka aan niyaddiida waxa ku jirto maadaama meeshan aa imaaday aanay baashaal u imaanay inaan raaxaysto haddaa aragtid nin saaxiib baashaalayo ninkaas nin wax ka fikraa ma ahaan bas aan hadda ma ogtahay mar walbo aan soo kaco
niidida waxa ku jirta meeshan ka soo kacay iyo hooyadii meesha joogta sax ma fahanta nin go'aan lahaa marka adi hooyada waxa u soo tagtay ani hooyadii waxa u tagay inaan dee wax aan qabsado maadaama nin weyn ahay mustaqbal ay sugaa moogtaa niyahow yacni intay joogtay iyada ani hooyadii qaxootiga joogta hadda markaas haa markaasna markaas maxaa ka wadaa waqtiga intay joogtay iyada hooyadii ani qaxootiga joogtay horta ani horta waxa ku dhashay Ethiopia guday meel aan ku dhashay reer guday intaan ka salaamaya sax 2012 aan meelahaas aan qaxootiga soo galnaa marka haddaan barnaamijkaas intaas ooga baxno caawa barnaamijka meesha intaas fanahaas ka haato barnaamijka caawa intaa u imaaday niyahow arrimo jacayl hawaa ma fahantay marka adii qof markuu niyahow wiil uu yahay horta dumar iyo ragga ilaahay u abuuray moogtahay sax dumar iyo raggana waa la iskugu talagalay sax haddii maadaama nin aad tahay nin rag aad tahay qasab waa dumar u baahan tahay dareenaa leedahay ma fahantay ilaahay amarkaas niyo Nairobi markaan magaalka la qabsaday oo bilooyin aan joogo oo dee maanta ninkana meel soo arkay qaxootiga maad lii dhihin yani waa reer magaaloobe magaalkan waa fahmay horta hor jacayl kama bilaabin ani macnaha focuska waxaan saaray niyo se wax u qabsan lahayd ani aan saaray moogtahay niyo hadii waxaan ogaaday marka dambe inaan dee aan u baahanay lamaane dus ilaahay amarkiis maalinlaasi kadis ah gabar aad u qurux badan meel ku arkay marka dee anina dee nin waxaan ahay horta ani ma jaakiri ani maanta waxaa aaminsanaya maanta gabar aad u qurux badan haddaan xirir usoo bandhigto aa jecla aa ku dhaho waa ku jeclahay may hadday dhahdo waan farxaa sababtoo ah maanta gabar qurux badan aan jecel u sheegto may dhahdo waan ku farxaawano sababta ma ku sheegaa sababta waxaa waaye maanta haddii gabadhan gabar fol aan lahayd waa nii jabi lahaa laakiin gabar qurux badan maanta i diiday farxad waaye u qalantaa marba haddii macnaha wax kugu dhacayaan wax qurxan kugu dhacaan ma fahamtay gabadhii niha waa hor istaagay waxaan dhaabaa ay warsa tahay horta meel laami ahayd oo jaag waxaan dhahay laamiga ka baxa gees istaagay waxaan dhaabaa waxa ku sheekaala gees ala bax waxaan dhahay abaa gabar horta qurux badan tahay zayd oo qurxoon tahay waxaan dharto xir maadaam soo lagu qabaa markaas waxay dhahay xirran leh waxaan dhahay ama maruu tahay waxay dhahay maruum ihi laakiin jacayl dhab aan leeyahay aan dhahay salaamu calaykum abaa lambarkaa u baahnaa أنا وحى أمسنا رضوان وقبر ما أنت دي مروتها أنا ريسبكت سينا وحش منا موت مرو وابل القواب حاس واي نرجع قوسم مهن إنه ضاع كذا خلط واي حتى هذا كذا خلط قوة ما فهمت لكن ما أنت قبر كل هذه جعلان لها أنا مكهراي وماشي أوجع على قبر هذا جعلان لها ماشي أوجع على هواي صوبته أنا وحى أمسنا ننكاس قبر إيجا شيء إنه واحد يدرن وش كوين إنه شيء كلا أنا أمسناها ama idii maanta waa la qabaa maya laakiin jeclaan lahaa waxaan dhaha abaa assalaamu calaykum laguma qabo soomaan haali ima qabo waxaan dhaha abaa haddii maanta 1000 qof ay ku jecel yihiin 1000kaas waxaan dhaha aan ka mid ah 1000ka ku jecel yaan ka mid ah laakiin maanta hadduu hal qof ku jecel yahay qofkaas ani waa ay soo fiirisay waxay dhahday abuu jeclaan lahay laakiin waxay dhahday ka waran walaaltinimo ana waxaan dhaha gabdho way dhasheen maasha allah laakiin haddaan saaxiibna ka waran xadaarta ay jeclaan laakiin aan saaxiibno nin iyo naagna inay saaxiibaan khalad waa mama noqon kara saaxiibo laakiin ana markaas danaan leeyahay waxaarta inaa ugu dhawaatid inaa ugu dhawaadaan rabaa moogtahay qof haddaa isku dhawaatiin isdhex gashiin wax walba imaan kara moogtahay ani bas gabadhii lambarkan ka qaatay isla markii ma wicin lambarkan safgaraystay marka anigu waxaa aaminsanaa waqti ay ku habboon tahay oo haddaan la hadlo ay isu jawaabi karto laakiin isla markii haddii qofkii lambarka aa ka qortay aa garaacdeed inaa naftaa lagu dareemaa waxay dhihin kan maxaa naf kale mahay miya ilaanim laf maxaa ka wadaa macnaha qof carcara macnaha oo wax kale ahayninba shaqo beliid dalool beliid ma qof macnaha qof zaid ah oo macnaha qof kale aan ka naxayninba adile markii ana xogaa asiir dhakay waxaan dhahay waqtiga ku habboon tahay ayada imaanay inuu ilaahay amarkiis markii isbuuc laga soo wareegay anigana qofta zaid ah u danaynayo oo mar walba lambarkeeda waan geeni waan ka soo laabanay waan fiirin whatsappka online waan ka soo laabanay waan fiirin bis oo gooyo marka maalmaha kamid ah sawir ayada ay leedahay yay soo saaratay macnaha sawir ayada ay leedahay profile soo saaratay waan arkay ayada inay tahay waan wacay marka way iga qaban weyse haddana waa ku celi way iga qaban weyse mar saddexaad ku celi way iga qaban weyse hay markaas waxay soo qortay yaa waaye saxan dhaa qof ku jecel waaye ayaa qof jecel maxaa ka wada ana qof jecel waan haystaa maxaan dhahay laguma jeclaan karin miya hadda waa la jeclaan karaa laakiin muhiimadda qofka ani aan rabo inaan helo waan haystaa صح marka waxaan dhahay abaa wiilkii maanta markaa qornaa wiilkii miya hadhow waan ku soo wacay ana hadda farxad meel iskala geeyaan waaye
maadaama marka hore ani ay daneen iga muuqatay aan daneynayay hadda maxay dhahday Janice waxa ifurma hadhow waan ku soo wicay okay haddaan wacana hadhowta ani haddaan maadaama ay dhahdo waan ku soo wicay inaan sugo waan ku qasbanahay sax qof markuu wax sugaayo oo wax u socdo muuqta dulqaad u leeyahay laakiin qof waxba u soconin ka waran qof waxba u soconin iyo qof wax u socdaan isku mid miya may bas nafsan ana markay saas dhahday nafsan dareema waa iska sugay habeenkii ima soo wicin ana habeen ku saxanaa macnaha intaas waxaa ka dhimanayaa gabadhaas zaid u qurux badan intay ku soo wacdo ama ay lambarkaaga heli weysaa ama intaas saacad bini'aadam tahay ama ka qaban weysaa waa soo jeed habeenkii habeenkii waa soo jeeday markii la maraya meelaha 9 saac aadaankooda u dhacayo maxaas dhahay wax ma socde naftaada u raaxee seexo adiga ha hurdo isku sab ilaahay amarkiisni hurdo igama weyse niyahow ma ogtahay markaani oo xanuunsanta habeenkii horta ni anigu waan yaab habeenkii maalintii habeenkaa badan maas dhaha niyo markaa xanuunsan tahay habeenku kugu dheeranaa ama markaa fikiraysa kugu dheeranaa sax qof iina isla hadlin oona waqti qaadan weligaa saaxib iska jeclaata ma ka fikirta qof macnaha aad weli hore u arkin marka u horeysa is aragteen weli ma ka fikirta ani gabadhaas waxaa ila noqotayba labadan inuu xiriir naga dhexeeyaba okay oo macnaha jecel dhab naga dhexeeyo ma habeenkaasna aan isla hadlin dhiba ii tahay sax subaxii markii 2 saac meelaas la maraayo ee soo garaacda ma isoo garaacin assalaamu calaykum isoo qortay sax hadii isoo qortay ma sugi karaa saad usoo dhacay waa usoo jawaabno jawaab ama call maxaa la wacalku salaam u qoray ayada isoo wacda marka no ayada naftirkeeda maada ana mutay gabadhaha quruxda badan gabdhaha foosha mutay waxay dheeriyeen dulqaad dheeriyeen macnaha gabdhaha foosha xun wax ma sugaan moogtaadi go'aanna ma laha laakiin gabadha qurux badan gabar waxaa waaye wax ayada u fiican oo taqaan wixii xun oo taqaanaa bas way soo wacday maadaama balan iga qaaday ay dhahday waan ku soo wicay markii aragtay in aan soo wicin ayada soo wacday marka go'aankaas ay qaaday qofka bini'aadamkana mawtin oo daneen zaid haduu ka arko surugo ka yeelana maanta hadaa gabar aad danaysid way kuu tumanee ama maanta adoo gabar hadaa wiil danaysid surugo ka yeelana ma fahamtay ani marka danayna ugu jeeda zaid u danaynaay laakiin ayada mutuseen waa is adkeynay in lagu tustadiidaysa waa is adkeynay ma ogtahay maadaama haddaan zaid hadaa u daneeyo gabadhan maanta zaid u daneeyo ayada mawta dan igama gelayso ma fahamtay maanta haddaan ani aan soo waco hadda iga qabanin ayada waxa uma aragto laakiin ani xanuunka u weynaa waaye sax in maanta ama dhaawac la gaarsiiyo ama ayada telefoon iga qabayso waxay dhaantaan maanta dhaawac la gaarsiiyey okay hadda qofkaas macnaha asa u noqonaysidna waa inuu qof adig ku anfacayo adig kuu soo baxay uu yahay ma fahamtay bas niyo gabadhi way soo wacday waa sheekaysanay gabadha niyo waa qof markuu dan leeyahayna moogtahay afaaru galaa bas gabadhii hadallo soo jiidashada kula hadlay marka waxaan dhahay horta ayada waxay dhahday nin horta waxay dhahday magac markaan u sheegan dhahay baa barasho wanaagsan bashka Allah ayada waxay dhahday Salmaan lay dhahaa bas magac Salmo aan meela ku qortay adduunku waxa aaminsan hal Salmo inay jirto halka Salmaan ayada ay tahay qof anaha qof kale wuxuu leeyahay aan ku tashanaa ka waran adeegas qof gabadhan ninaaba isku soo dhiibay ayadina isku dhiibtay yani nina isjeceliin jecelka kale moogta jecelni waxaa jira caadi iska normal ah iyo mid waxaa jira zaid ah ma fahantay oo markaas mustaqbalkiisa uu soo socdo uu soo dhow yahay waa mid waqti la isgeliyo nin waxay dhahday bashkow anada waan balanay aan asxaab ahaano ani xanjadeeda meel ay ugu dhigantaa maxay dhahday xanjadeeda meel ay ugu dhigantaa maanta hadday dhihi lahayd anaha shamiido iyo xanjo way kala tahay moogtahay xanjada si walba hadday tahay waa lasoo fujin karaa laakiin derbiga ma la fujin karo soo maahan derbi lama fujin karo laakiin wax jilicsan hadduu yahay hadda maro oo kaleeto waa la fujin karaa markay dhadaan xanjada meel ay ugu dhigan haddana waxa isii baxay hadal kale isii baxay oo ah xanjadaas meesha lagu dhejiyey intii laga soo fujiyo meel kale lagu dhejin karaa maadaama xanje ay tahay xitaa raadkeeda meesha kuma harayo moogtahay xanjada hadday qalasho raadkeeda meesha kuma harayo waa lasoo fujinay meel kale lagu dhejinay xanje mis wax kale waxay dhahday macnaha ha u fahmin xanje ahaan laakiin ani maanta horta telefoon waxa loo qaataa inaa shukaansi ama wax ganacsi waxa ku qabsid maanta qofka kaliya aan adduun ka raadinaya waa haystaa niyo saaxiibtinaa naga badan waxaa dhahay abay anigu waxaa diyaar u ahay xanjadaas meeshaas derbigaas wasaqoobay ku dhigan intaan kasoo fujiyo derbi nadiif inaan ku dhejiyo diyaar muu tahay taleefkaa lagu jarano macnaha hadalkaan dhahay jawaab may u haynin waa laga aamusa 2 isbuuc ilama soo hadlin
أنا مكو جوه هاي لو أسبوع markii loo maal kala aamusana ana marka waxaas dhahay maadaama ayada ay kugu jartay sabab ay kugu jartaa jirto sabab taleefka lagugu jaray aad jirto waxaan dhahay haddaa ka dawaalatid waxaa iska dhigaan dhahniho waxaaba iska dhigtaa dhahay nin howlo kale adduun ku dhex jiro oo macnaha mashquulsanba mana mashquulsani xaaladda ay u adag meel cidlaan fadhiya niho ugu dambeyn gabadhii saan u wada sheekaysananay adi muddo 5 bilood ay nagu qaadatay gabadhii niho ugu dambeyn waxaan sameeyey inaan ninkii ay jeclaayeen intay saaxiib ka dhigato ana jaceylkeeda koowaad nolosheeda koowaad ana iga dhigto wallaahi haddaa aragti gabadhaas ay u qurux badan tahayna gabadhaas aad ku jecel midhahaysid laakiini raganimadeeda iyo hadalkeyga iyo saan oola hadlay markay aragtay iyo macnaha waxay imalaysaa ninkaas gabadha caadi ugu sheekeeya anna gabadha nolol ahaanteeda xasuusisay tahay qaabka u taala xasuusiyey inay adduunka ayada ugu qurux badanta adoo aad taqaanaa nin adduunka dhigtaba ka sheekaysa adig macnaha waxaaban dhahayba adduunka waxaa jirto hal naaga jirto hashas naagna adi waaye sax aniga waxaan dhahabaa nairobi aan jooga nairobi dhan waxay la taan dhahay nairobi dhan rag iyo dumarba waxaan dhahay xayawaan ahaana u fiirsadaa qofta keli dadka waxaan dhahay dadkaas dhan waxay leeyihiin aan dhahay daanyaar ee xayawaan ay leeyihiin keligaa banaadinka qofta keli oo biniaadan ahaan ah u fiirsa waxaan dhahay adi waaye qofkaas dhahay rajeer ay gelisa sax anna waxay dhahay dadkaas dhan saas camal aan arkaa dhahay keligaan biniaadan ku arkaa wax iga dhuma jiro marka aan hamigay wax xalaas ma ahayn hami kalaan lahaa bas gabadhii waa sheekaysanay gabadha niho dadka ragga laba u kala baxaan nin gabadha lacag kusoo jiitaa sax oo uu kharash garayaa maanta qof walba meesha u rono aada moogtahay haddaa maanta gabadh aafan garaysid xitaa hadday ku khiyaamaysa xitaa ugu dambeyn gabadhaas adaa iska leh maadaama because of waxay u baahato waa siinaysaa ma fahantay laakiin iyo qof waxaa jiro hadalkiisa iyo macnaha wax ku dhacsanayo ma fahantay oo hadli karo oo gabadha oo gelin karo niyo ugu dambeyn gabadhii oo ageliyey gabadha waxaaba aamintayba naflaha adduunka joogo bas inaan labadana bas in adduunka joogno qof kale uu jooginba gabadhii saas ahayn muddo waxaa wada soconay dhowr biloodaa wada soconay zaaid isku jecleen gabadha horta waxay ku fiican way shaqaynaysa gabar shaqaynaysayd anna ma shaqaynin markaas shaqa ma bilaabeen hadda ani waxaan joogay meel dhahay waxaan ku noolahay Nasir Garden ayadana waxay ku nooshahay Nasir Garden oo kale ma fahantay waa isku dhaweyn sax bas gabadha markaa wada joognay ugu dambeyn gabadha shaqa u soo baxday shaqada isli ka shaqaynaysa qof markuu isli ka shaqaynayana wuxuu ku qasban yahay meeshu ka shaqaynaya agteeda inuu dego kharashkaas ka carreys Nasir Garden ay soo aado kala fogiyeen transport bas way fikiraysa marka isku bahano oo marka hadda ayada ay rabto inaan la kulmo kaleeto ayada ay soo kol gareynay meesha imaanay ani qof loo waca ahay weligaa qof martiqaad ka waran ani wali martiqaaday maadaama ani maanta horta ninka ragga waxaa fiican maanta hadduu gabar shukaansanayo gabadhaas xitaa hadduuna wax kale u fiirinin maanta niyo gabadha adaa shukaansanayso maahan waalidkeeda waxba kama ogo adaa qofka keli maanta ay ka naxayso hadday maanta ay xanuunsato hadday faraxsan tahay qof farxad gelinaya adigu ay kula farxaysaa haddaa murugto ay kula murgoonaysaa haddaa farxad ay kula farxaysaa moogtahay adoona xataa fiirinin inaad daanyeerta adoo fiirin gabadhaas maanta niyo adaa mas-uulka ah ma fahantay waxaasoo rag ah ay kaa soo go'day bini aadam way xanuunsan kartaa adi naftirkaaga fikir gabadhaas aad shukaansanaysid waxay u baahan kartaa adoona dee lacag weyn jug a ku siinin markay xanuustoo kaleeto tartiibka dawyar oo ogeyn kartaa wax lacag badan kuma baxaysa ma fahantay way xanuunsan kartaa waa daweyn kartaa wax yar u baahan kartaa ana shoobin kuma jira laakiin shoobin banaankan ka ah shoobin ayadaa gadanaya dawo laakiin hadday xanuusto waa ugadaan maanta inay noolaadana ugu jirto inay noolaadana ugu jirto ma fahantay ayadaa gabarna moogtahay shoobinkeeda ayadaa taqaano ani maanta intaan laakiin lacag aan siiyo shoobin ma soo gadanayso xaaraan laakiin ayadu waa shaqaysan jirtay ayadu way shaqaynaysa anna xaaladda ogeed moogtahay maadaama anna aan shaqaynaynin ma shaqaysidii waxbaa ku darsanan nin ragga ahniyahow ninka raggaana si walba u sameey wax u heli karaa adii maalmaha way xanuunsatay markii xanuunsatay way ii sheegtay waxaad waa xanuunsanay shaqo ma aadin waa soo baxay waa soo labistay gaari aan weliga soo raacay because of kalsooni ay gashay maadaama aan ahay nin jacayl leh oo gabar jecel haysato sidii hore si aan ahayn aan u dhaqmaya waagi hore mutsadaan iskaga dhici jiray laakiin hadda nin boos ahaan gaariyaa soo karista boltaa soo qaata
bas gabadha waxaan la kulmay ayadoo ku xiran yahay canal ku xiran yahay oo dawo ka imaata waxaan dhahay horta gudaha galana kaa sheekaysanay nin gabadha way xanuunsaneyd waxaan dhahay ma lagu daaweeyey ha waxay dhahay dawadu ay soo dhamaatay laakiin weli wax isbedel ma arkin keenaan dhahay bas gabadha waxaa geeyey meel hay galas ma geenin farmasiya caadi waxaa jira in dawo fiican laga helaya geeyey gabadhii waa lasoo baaray xanuun lagu sheegay oo mar hore lagu sheegay tokada hore mid ahaynaa lagu sheegay laakiin markaas dawo ka imaatay haa dawey ka imaatay laakiin xanuunkii saxda dawadiisa lama siinin xanuunka ay qabto dawadii saxda looma siinin ma fahantay baaritaanka kale aa moogta niyahow gabadhaas wax meel farmashi oo ciyaalka xaafadda laga baara ma fahantay haa marka xanuunka hayo waxaa lasoo siiyey bas xanuunbabiyaala lasoo siiyey dawo fiican lama siinin gabadha niyahow adi xanuunyo gaas iyo waxaasaa laga helay waa isqarash geliyay maalintaas waa isqarxiyey gabadha waa soo daaweeyey adi ugu dambeyn way caafimaad gabadhi nin waxaan dhahay gabadhi isbedelaan ku arkay waxaan lacagta gabadha dawada aad daaweysay looguma horreynin isbedelaan ku arkay sidii hore isbedel wanaagsan ama isbedel xunaan ku arkay aan wanaagsaneyn negative nin naaga waxaa jiraan qof ninka hadduu wax siiyo adduunka ugu nacbanaynan naag horta haweenka way kala baxaan moogtahay qaar waxay rabaan qof wax siiyo qaarna ma rabaan qof inuu wax siiyo asaan hadduu laakiin maanta danaagta aad qabtid waa xaaskaaga ma fahantay bas waxaan dhahay waa ku imaanaa waxay dhadahay imaan taleefon ka wada sheekaysananaa saas miya hay diyaar waa 2 maalin ka bacdi ayadoo ogeynaan soo baxay marka meesha ka shaqaynaysan waa aqaanaa moogtahay waa u tegey way la yaabtay way aragtay may isoo istaageen qofti markay aragto u malayn jirtaba adduunka qof kale inuu joogin ayadoo waxaan arka fadhida ka waran sida abeeda kugu soo ordi jirtay ugu soo ordi jirtay maanta waxay is dhahday waalidka markii laga soo tago horta adduunka hooyi aba u muhiimsan ma fahantay markii laga soo tago qof waxaa jiro qofkan ay isfahmayaan oo daneen ay iska helaan ma fahantay qof walba qofka u roon u jecel yahay waa isku rooneen way aragtay soo fiirisay gacanta ii taagtay waagi horena markaan saa usoo hor istaago ama hadday meel igu aragto indho kale may lahaan jiran ani lee bas waa dareemi kartaa qof si aa ku taqaanay hadduu iska bedelo waa dareemi kartaa gabadha waa isbedelaan ku arkay isbedelka ugu horreeyey maalintii aan daaweynayay si ay la dhaqantay markaan arkay inayna faraxsaneen maanta dareema iyo haddana waxaa isku kay dhufsantay anuu intaa u imaaday ee meesha fadhido teleefon ay fiirinayso dhakhtar meesha ay la fadhido wiil meel ay la fadhido dhalinyaro ah dhakhtar maahane wiil araya meel la fadhiday markii waxaa ogaaday aniga moogtay waagi hore markii hore adduunka anaa ugu muhiimsanaa markii waalidkeed laga soo tago qofka maanta waalidkeed soo labeeyo oo ugu soo xigo ani ahaa ani markii niidid waxaa gashay nin xanjada meesha ka soo fujisay ama meesha ku dhigsatay xanja soomayn haa waa laga fujiyey maadaama qof kala fujiyey haa hadda moogtay waxaa la rabay xanjadaas inaan tuuraa la rabay oo meesha ani aan shameedo marsado ilaa xanjada la sii wada bas gabadha markaa arkay niyo inayna isoo kicin waa iska soo tegay maalin waxaan dhahay waa soo wacay marka xaafadda imaaday khadka igala soo hasha lama hadlin waxaan dhahay anayda si fiican u sheegsana waa fariisanaynaa niyo ridwaano waxaa la harto qof meel u caddahay meel ka madow gabadha markaan isku imaanay meelaa tagnay gurigaa tagnay waa sheekaysanay anata wax ku fiican mataqaanaa maanta qofkan haddaa si dhaba u jeclahay ma laga yaaba inaan u dhawaado because of haddaan is dhaho ama gacantaag ama wax ku samee jacaylka ayada u qabo aa soo xasuusanaa ma fahantay bas gabadha waa sheekaysanay nin waxay dhahday anaadi horta cabaara is jecelnahay ayadaa dhehayso anaadi waa is jecelnahay annagoo wada fadhino waa is jecelnahay haa waa is jecelnahay niyahow jacaylkan ugu dhammaadaa calaf wax la dhaha jiro niyahow intuuna calaf noo imaan ama isguursanaa hadda ama isguursanaa ayadaa dhehayso nin hadda ay guursanen maxaa igu shukaansataa markaasaa waxaan dhahay horto saasaa dhihin ani adi horta waqtigaan qabsanaynaa waqti hebelaa qabsanaynaa waqtigaas haddii la gaaro haddaan ku guursan waayo waa iga tegi kartaa laakiin maanta inaa hoos iga soo geliso anigu waxaan dhan ku guursan karaa ani familaan ka dhashay moogtahay guurka wax weyn ma aha maanta kaba soo qaad waa ku guursaday familaa jiro guurka waa laisku caawiyaa moogtahay waa maanta kaba soo qaad waa la ii kaa guuriyey meelaa la ii kaa dejiyey wax u baahan tahay waa heshay noolaa la rabaa ani maanta ma shaqeeyey saana u qurxoon tahay maanta haddaa ku guursado waxaa ku guursana waxaa waaye noloshaada wax walba maanta inaan ku siiyo anu waxaan maanta ma shaqeeyey guurkan waa ku guursan karaa normal waaye laakiin nolol baa la rabaa
noloshii awood noloshii haa Misku keetoosno. misku keetoosno Okay. maanta hadda ani aan shaqayn lahaa waa guursan lahaa Mm. ma fahantay laakiin maanta ma shaqaynayay dhalay inuu iska hablo aan iska ahay oo telefiis hata ka hargashin ma fahantay shiidaata haa shiid ahay bas waxay dhahday saas miyaa kasoo fikiray dhahda ani haddii inay guurstaan rabaa hadda ay guursanaynin anadii ma wada sheekaysan karno magaalka kala gelaynaa gudhoy rabtaa ayad macna ayad gudhow yartaa oo afka hore ah bismillah Ma fahantay? Aha. marka anigu xaaladda ay u adkaatay meeshaan ka imaadan dib u fiiriyo waxaan dhanayo xaaladda xaafadda aan ku ogeyd nairobi ma ku guursan kartid aan dhaha Mhm. kow intaada guursanin sababtaa u imaatay iyo waxaa familka uga soo tagtay ilaa qof dhan oo dhalaatay mogtahay sax maxaa uga soo tagtay go-aankaaga muxuu ahaa inta waxaa u imaatay muxuu ahaa ani inta waxaa u imaaday inaan shaqaysto maho sax laakiin nasiib xumo nasiib wanaag gabadhan aan soo dhex gashay Ah. marka waxaa dib u fiiriyey xaafadeydii xaalkeeda dib u fiiriyey okay intaan ayada u jawaabin waxaan isku dhufsaday xaafadeydii hooyadii qarlaha siiyey xaaladeedii iyo meesha hadda sababta ku keentay iyo sababta inta u imaaday aad dib u fiiriyey markaa kala tagnay xaafadda aadaniyo waa fikiray marka waxaa ii soo baxday guurkan barnaamijkan inaan inta iskaga baxniyo aan shaqo raadsado oo xaafaddii dib u fiiriyo Aha. gabadhii niho ugu dambeyn hal isbuuca kala aamusaneen waa balmi marka tokoro ilaa i yarta mogtahay tokadan anaa balmi gurigaa geeyey nasir gaadhinaa ku balmiyey waxaan dhahay gaari soo qaada bas hadii anoo is diyaariya dhaha gabadha kharashka bixi gabadhan gabar diyaarsan waa meelaa u cad gabadhan raabka sii weynaa la saaray wiilka isla socdeen raabkuu saarayay ani soo mid weyn ma saaran Ah. mid kasii weyn sooma saaran Ah. marka ani waxaa aaminay raabka ani aan saaray raab kasii weyn in la saara okay oo anigii Aha. ameel cila taaganahay meesha laga bixin hadalii aan dhahaya hadalli ka weyn yaan gabadh loo sheegay ma fahamtay adi adduunka u akhrinaysa hadda meel adduun kale loo haa akhrin. okay bas waa balmiyey gabadha waa wada fariisananiyo waxaan dhahay horta soo dhowo aan kusoo dhowo meesha xaafadeeda kusoo dhowo waxay dhahday waa dhowahay waxay dhahday marka anaadi waa ballanay jawaaba kaa rabaa jawaab le ku imaan jawaab isi waa iska baxaa okay iska bax maxaa ka wadaan dhahay guurku marka ugu horeysa maraad tiri waqtiyaa ku heshiisan guura haa goortee waxaan ku heshiinay anayada 2020 waxaas waa iska heshiima ma guursa rabin ani ilaa cabaar rabe inaan gabadha wadaa rabe oo yani ayad guur ma ka rabti horta ayada mustaqbalaa ka rabay laakiin mustaqbal waxaa ka rabay haddii anoo maanta jeebkii wax fiican ku Okay. jiro oo shaqaystay aan rabay inaan laakiin guursado afkaada maxaa u sheegtay laakiin afkayga waxaan u sheegay inaan guursanayo sanadka haa oo ayada ballan ka qaada mogtahay sanadka u sheegtay waxaan u sheegay 2026 u sheegay okay Ma ayadana fahantay? hadda waxay taagan tahay ayadana waxay taagan tahay maalmay taagan tahay wiiga kasoo fikir marka lagu leeyahay goortas guursan lagu leeyahay bishan markay dhehayso waxay dhahday marka ana ayada kala tegaynay maalinta u horeysay ayadu jucmo ka dareemay dhehday waxaan rabaa inaa i guursatidaan rabaa ayada hata isbuuc ma ii qaban niyo maalmaha soo socda inaa i guursataan rabaa dhahda hadda ay guursanaynin qof i guursaa raadsanaa maxaa degdegaas taasaan ani garan waaya saas markay dhahday aniga wadnaha dhag dhahay waa ka tegay okay bas gabadha ugu dambeyn waa balmiyey guriga u imaatay marka guriga u imaatay waan sheekaysanay waxay dhahday jawaabanka hadal kale imana dhahday ani jawaaba kaa rabaa ma i guursanay haa ama maya saxaan dhahay horta waxaan dhahay soo dhowow wax kaal soo guur ma aha waxay dhahday saaxiibaha kudi hebel iyo hebel naagay qabaan xaasi leeyihiin adi maxaa kudi inaa xaas yeelatid intana la eg tahay nin ragaa tahay waa shaqaysan kartaa xaas inaa yeelatid macnaha maxaa u diiday maa naag gursatid asxaabta facaa nimanka facaa naagay qabaan okay ani maxaa ii lugoynaysaa ah horta waxaan dhahay soo dhow jawaaban ku hayaan dhaha Ah. su-aashan aan kaa rabay inay weydiisid ah waxaan dhahay maanta nin ani aan saaxiibana mise nin aan isnaqaano oo reer leh oo reerkiisa intuu meel dejistay asaga dhaqanaya ma aragtay familaa leeda kulahaa ani waxaan dhahay waxaan ku adi reerkiina waxaan kaa soo watay inaan reerka anagu keeno waxay dhahay niyo ani assalaamu calaykum ani af soomaali ma rabi i guurso kas waxaan dhahay diyaar ma u tahan dhahay inaa intaan ku guursado oo meeshay familkii joogaan qaxooti maadaama nairobi aad joogtid nairobi cabaar joogtid inaa meeshay familkii joogaan abkii diyaar ma u taha ah waxaan dhahay haddaa ani familka macnaha ii geenaysid maxaa ii guursanaysa okay ani waxaan nin raga ahay reer dhan aan waxaan dhahay aan kaa soo wadanayaa ka waranaan dhahay intaan reerkiin haddaan kaasoo reerkan aan ku geeyo maku anfacaysaa waxay dhahda maya waxaan dhahay saaxiibaday way guursadeen ilaah u barkeeyo laakiin maanta nin shaqaynayo oo xaaskiisa nolol fiican ku nooshaa ma lahan ani mid keli aan ka dhinta waxaa waaye markii dhanka hooyadii laga soo tagay aabbahay xaaskayga ani nolol qurux badan inay ku noolaato ajash haa quruxdii ani ay ila imaatay inay igula joogto wax Iyo mid walba u kasii baahato fiican. haa iyo mid kasii fiican weli watana okay waxaan ka dhintay
waxaan dhahay saan waxaan dhahay nolosha haddii adkaato salmo waa fikri ana waa fikiraa waa iga fool xumaanay haa waan iga fool xumaan ani markaan inaga fool xumaan ma fahantay ana waxaan Okay. rabaa waxaan dhahay qofka haddaa jecel dhow ii qabtid waxaan dhahay dulqaad bis ii samee ii muuji okay dartaa waxaan diyaar u ahaan dhahay waxaan diyaar u ahay wax walba aad jeceshay inaan ku sameeyo laakiin iga warsug bas lee waa ku Okay. guursanaa guur waa masti oo guursanaa gabar Waqti kale ma isii. fiirinayo laakiin waqti isii waxaas mi maray dhahda baraada ilaa haddaan waxay dhahday maa foolxumaada waxay dhahday guurso ani waxay diyaar u ah inaa xaaskaaga aan noqday dhahda way ka go'an tahay ayada way ka go'an tahay okay kadib maxaa go'aan lagu gaaray marka kadib anina waa fikire gabadha moogtahay si dhaba anida isku jeclayn korkeeda hataa weli ma taaban ma fahanta Ah. waa iska ilaalinay jacaylka ana ayada u qabo wax walba ii diidanaa Sax. maanta daas dhaho gacanta gabadha salaan hataa anoo diidan aan saas dhahay ma fahanta Ah. ilaan jacayl dhaba u qaba moogtahay qof markaa jacayl dhaba u qabtid waa ilaalinay waa ilaalinay waa ilaashanay ma Ah. fahanta Ah. bas niyaho gabadha sidii anagoo isku xanaaqsanaa soo kala tagnay oo iga soo tagtay balooga ay saartay marka okay bas balooga marka ay saartay cabaaraan kala maqneen hal bil miya aan kala maqneen intay baloog ay saartay ani shaqaa hela Ah. bas meel dukaanaan shaqo ka helay waa shaqaynaya marka Sax. bas anoo shaqaynayo hal bil marka ani aan shaqaynayo maalinay baloog inta iga qaaday iyo waxay soo qortay hay whatsappka ha iga soo qortay Ah. weligeed ha ima soo qoran Ah. aad moota salaam calaykum wax la garta waaye laakiin ha ii soo qortay okay marka anu waan daran gabadh isbedelo inuu ka imaaday marka ayadana markaas weji cusub ay ila imaarataa qoftan qofay baratay Ah. qoftan qof waxaa waay bil loo bilaabo waaye oo la arad bixinaayo maxaa ku ogtahay waa dareemay mogtaadii see ku dareed waxaa ku dareemay gabadha waxay dhahday markay hay isoo qortay aan dhahay hayt u qoray waan wacay xaalkan weydiiyey se waxu jiraan waxay dhahday niyahow sheekaan ku hayaa haddana inaan kulana rabnaa waxaan dhahay kulankeena faa'iidana kuma jirtee mar walba khasaare taagan waaye maxaa ii sheegi kartaa nolol cusub aan samaystay dhahda markaas nolol cusub may samaysan wiilkaas ay shukaansanayso shukaansi kama ahan laakiin waxay ka tahay lacag ka qaado ayada ha ayada Ah. bas waan kulana waxay dhahday wiilkan la sheekaystaa jacayl uma qabi wiilkan wiil qurbaha jiro waaye laakiin lacag u isiiyaa okay bas intan waxaa sameynin meel makhaayadaan tagnay cashaal dalba marka waxay dhahday lacagta anaa bixinaa ayadana markaas shaqadii waa iska dhaaftay ma shaqayso cashaa bil blog ani aan saaranahay ilaahay macnaha nasiib wanaag anaa shaqayla ayada ma shaqayso okay bas cashay noo dalabtay waa cashaynay marka inay bixisay rabtay marka lacagta saa waxay dhahday waa hadaayt wiilkan kuu sheegayay aan sheekaysanaya lacag isoo dira waxaan dhahay waxaan lacagta anaa bixinaa sug maanta waxaa ii keentaan dhahay nin ragga oo ani ficiye lacag aan ka soo qaaday oo dacad ku noqday inaan cunto iga bixisid waxaana taas waa ka dhintay xaarani ka tahay nin ragga oo ficiye ah oo macnaha haddana waxaan wax adi sadaqana ayna ahayn laakiin khayaana aa uga soo qaaday asaga aa u jilaysid filin aadana jecleen an waxaan cunto miigu siinaysid okay nin ragga wuxuu ku siinaa waxaan dhahay waa khaldantahay waxaan dhahay misiinaysa ani sax cashada anaa bixinaa adi waa ibalmase laakiin cashada anaa kaa bixinaa nin ugu dambeyn gabadha saasaan u ahayn gabadhi nihow waa igu soo jeestay aniga igu soo jeestay Ah. maanta xataa an meeqa mar lacag ku sii dhahda waxaan dhaha waxaas wax aad shaqaysanayso waaye waan isku lena waxaas maanta hadda aad ii garatay waa caadi ragga haweenka lacag way siiyaan ma fahante laakiin maanta midda keli aan ka dhintay waxaa waaye nin rag oo ficiyay lacag ka soo qaaday inaa isiisid Ah. waxaan midile kooma iga siinaya waxa dhimasho waabe okay ugu dambeyn gabadhii niho waa kala dhammaanay Ah. officially horta intaana kala dhammaan waxaa ka shikiyey guurkan degdega ah adiga aniga haa waa shikiyey waxaan dhahay niyo gabadh waa sheekaysan jirteen gabadhan gabar mustaqbal fiican ahayde mustaqbal fiican qof fiican ahayde degdegan maxaa waaye marka ani waxaan isku dhufsaday gabadhan guurka igu dejinaysa oo dhahayso waa isguursanaynaa oo haddana qofka bilaa loo qabtaa moogtahay Ah. waqtiga aan qabsanay ayadoo la gaarinay mar walba waxay dhahay igurso beri diyaar ma tahay xitaa waxay dhahay sheekh anaa keenaa ad ii gursale waxaana guurka si guur weyn amirta bas khud saraxti warta khudbasare waxaa ii geenaanay anoo guur arkaa ayada ayada macnaha guurka moogta wuu kala yahay guur khudbasirada way sii kala fiican tahay moogtahay Ah. guurka waxay ayadoo xirta in caad u gurso oon loo meheriyo oo wax yar aroos yar aa dhigano kadib aa aqal galno okay ayada nool ahaan way jeceshahay okay qofka maanta ugu fiican ama rag ahaado ama dumar ahaado qofka noloshaada saxda kugula joogo waaye sax gabadhan bro niyahow waxay igula soo dulqaadatay nolol aad u adag
ma fahamtay xitaa maalin waxaan xasuusta intii soo wacday waxay dhahday ima soo wacaysid kool caadi khad kale ma aga soo wacda kool caadi ma soo wacaysid miya adaa dhahday Saciid ayada ay dhahayso handaan kaar ma gishtaan telefikiga laakiin khadka free waa wifi waa caadi waa isticmaala oo asaas ka soo wacay okay kaar ay soo gelin jirtay okay ma fahamtay bas hadda ciidoo kale marka loo baahdo awtan marka aadayno yani waa kaa dhisi oo iga jirta dhisi jirta taas waa ugu mahadcelinayaa sharfi karaamo ilaahay sharfo ma fahamtay marka shaki waxaad tiri guurka degdeg ka imaado macnaha anay jacaylkii hataa aan zaid kugu qabay iga nusqaamay iniga marka ana xaalad isku dhufsid moogtahay waxbaa kuu soo bixi gabadha markaan arkaniyo caaw haddii ay weydiin berri bay weydiinaya ayada macnaha waa ay jeceshahay laakiin ana shaki ay galaa shaki shaki waxay galay guurkan degdega gabadha ay wado maxaa waaye ma lagu doomara ama uur leedahay waxaasna uguma shakinaya moogtahay waxaasna weliba ma uga shakinin gabadha gabar wanaagsan oo sharaf la waaye laakiin yani shaki lagu galo laakiin shaki bis ay galaan degdegan maxaa waaye okay hadda maxaa ku kala joogtay marka hadda waxaa ku kala joognay ani ayada nolol cusub ay dhisatay aniga nolol ma dhisan waa iska jooga ayada ugu dambeysay laakiin ayada hadda xiriray leedahay aada waasan tahay bashka bishaar iga qorxi magaca laakiin magaca bishaar hata uu qurxo yahay bishaar waa bishaaro no laakiin niyahow magaca bishaar magaca loo fikira maha moogtaadii ani meel baadiyaa ku dhashay moogtahay bas waqti habeenaan dhashay duqoo waxaa jira niyahow oo hooyadii abti u ah wuxuu isku soo aadiyey waa hore lama arki jirin mar ani aan dhashay isku soo aadiyey guriga waxaa lahay horta hooyadii seena waa la intaa ka salaama hooyo seena maxay dhashay wiil war waa bishaare siduu magaca lagu bixiyey hataa mool ii fikiranba waa isku qorxisa marka maadaama dad loo fikirinaha markaa dee dhalinyar ahaan dad waxaa jira wallahi bay kumishi haddaan dhamaanta bishaar allaa way la yaabayaan bishaar maxaa waay dhahan